waxaan rabaa maanta inaan kaala hadlo laba qodob oo ay ka mid yihiin mid uu yahay miscommunication ama xiriirka oo xumaada iyo misunderstanding oo ah isfahan daro. labada qodob badanaa waxay ku yimaadaan perception ama aaminaad dadku ay aaminsan yihiin wax iska dhaadhiciyaan. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad qof meel ku ballansan tihiin, qofkaas aad ballansan tihiin waqti baad ballanteen, saacad baad ballanteen, laakiin xilligii aad ballanteen telefoon uu kaa qaban waayey, meeshana muusa imaan. qofka bini aadamka waxaa nagu abuuran cadiifad ah inaan iska dhaadhicino mar walba sida khaladka inaan u fikirno oo aan raahno maaha qof mas-uula, muxuu telefoonka u qaban waayey, muxuu u jawaabi waayey. laakiin waxaa laga yaabaa in qofkaasi ay haysato duruuf ka adag midaan adigu aad ugu yeeraysid ayaa laga yaabaa. marka taasi waxay keentaa isfahan darro aada u halisa oo adigu inaad iska dhaadhicisid in qofkaasi uu qof xun yahay, laakiin isaga laga yaabaa in dhakhtar la dhigay, laga yaabaa in taraafika laga haday, laga yaabaa in duruufka aragtaada loo soo sheegay, laga yaabaa in la xiray, wax badan baa suurtagal ah. marka kuwaas suurtagalka iskama dhaadhicino ee waxaan iska dhaadhicinaa dhinaca khaldan. ha u fakerin mar walba dhinaca khaldan. waxaa soo haray qodob kale ku saabsan wada xiriir xumada iyo saameynta ay leedahay. haddii cidi wax kaa sugayso oo aad cid arrin ay idinka dhaxayso oo aad joojisid xiriirka idinka dhexeeya aad jartid, qofkaasi kuma ogaan karo waxa aad ku sugan tahay, kuma ogaan karo waxa iska bedelay. marka waxaa mar walba waajib ah inaad qofka xiriirka aad uu toos ahaado, is update gareysaan, xogta mar walba aad wadaagtaan. taasaa caawinaysa in isfahan darradu ay meesha ka baxdo. mahadsanid, nabadgelyo.